Asalaamu calaykum kusoo dhawaada kanaalka Cabdiqani Official. Maanta waxaan ku hadli doonaa ahmiyadda tarbiyadda Islaamka. Kusoo dhawaada. Horeyn ahmiyad weyn bay ku leedahay tarbiyadda Islaamku nolosha qofka iyo bulshadaba, waana waxyaabaha ay carruurtu ku leeyihiin waalidkooda ugu muhiimsan. Alle subxaanahu wa tacaala quraankiisa wuxuu ku leeyahay وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. أمر أهلك صلاة كنا صبر كمنا ويدين الرزق أنك أياك ورزاقنا عربت وناكسن لك عبسك أياك وترتا. آيات وحي نوع عديلسا إن أنا كوفلن إن صلاة كليجا تكديد أي واجب كوت هي إن أمرتد أهلك كوا وجود الدو أريد هذا السجى هذا يعرض هذا إن عروض الأمر الصلاة دنا lafdhabarta ugu muhiimsan ee tarbiyadda Islaamka waana mas'uuliyad saaran qof kasta. Rasuulkeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhamaantiin cid baa la raaciyay, ninka waxa la raaciyay ehelkiisa waana la weydiinayaa waxa la raaciyay, gabadha waxa la raaciyay guriga saygeeda waana la weydiinayaa cidda la raaciyay, shaqaalaha waxa la raaciyay xoolaha saygiisa waana la weydiinayaa cidda la raaciyay, mid kasta oo idinka midna waa la weydiin doonaa cidda la raaciyay. Marka waa muhiim in aad baratid tarbiyadda Islaamka oo aad ku dhaqantid oo aad xeerkeeda baratid oo aad qodobadeeda baratid, sababtoo ah qof tarbiyad lihi waa qof edaab leh, waa qof dhaqan fiican leh. Qof bilaa tarbiyadi waa geef bilaa tarbiyada, waa qof bilaa dhaqana. Cid bilaa tarbiyadana cid lama dhaqmasho. Assalaamu calaykum.